Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada walaal janaalkeena Tija Zako. Janaalkan oo hawada soo gala dagbacdi insha Allah oo yaan rajeynayna inaan waxyaalo teknoolajiyada la xiriiro aan kusoo gudbin doono intii karaankeena insha Allah. Barnaamijkeena haddaan u guda galno oo maanta aan uga hadlayno sidee ayaad Facebook adigoo online ah flash ka dhigi kartaa. Meeshaas waxaad tagaysaa Facebook ku dhufanaysaa waa imaanaysaa marka first one meesha saddex dhibcood oo profile laga fiiriyo imaanaysaa waxaa ku dhufanaysaa setting and privacy ku dhufanay kabacdi setting ka toos u tagay active isa soo tagay meeshan button aad oo furan ayaad xiraysaa taan off leedahay markaa xirto taan off dhaxid waa soo laabanaysaa waa ka soo baxaysaa meesha application-ka waxaa imaanaysaa haddana qaybta messenger-ka imaanaysaa messenger-ka dhacle sida la waxaa ku dhufan jaadkaas meeshaas oo jaadkaas ku qoran tahay ku dhufanay marka ku dhufatid waxaa imaanaysaa meeshan kale laba mustacaan meeshan ku qoran tahay active status meesha ku qoran tahay ayaad imaanaysaa ku dhufanaysaa hadda asidana uu furan yahay sidoo kale waad xiraysaa taan off leedahay markaad hadda ka bacdi insha Allah biidinlaahi bari walaal adigoo online laguma arki doono dhankaas Facebook tatii marka waqadkaada ku jiraysa mana arki doontid walaal nagu haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe and like share nagu dhiirigeliya.